xukuumadda xilka sii banaynaysa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa waxa ay difaacday go'aanka ay wasiiradii hore ugu ballan qaaday inay heli doonaan mushaharkoodii inta ay nool yihiin iyo weliba dhaqaale kale. go'aankan dhammaan wasiirada bishii lagu siinayo in ka badan $2,000 halka kharash inta ka badan la siin doono ra'iisul wasaarayaashii hore ayaa waxa ka dhashay dhaleecayn xooggan. inta badan dadka dalkaasi ayaa waxa ay la daalaa-dhacayaan saboolnimo aad u baahsan. qof la taliya oo ah ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa waxa uu kharashkaasi ku qeexay mid aan badnayn oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo buu yidhi in wasiiradu aanay ku dhicin faramadhnaan marka ay xafiiska baneeyaan. heshiiskan ayaa waxa uu qorayaa in wasiiradii hore inta ay nool yihiin ay bishii heli doonaan in ka badan $2,000 halka ra'iisul wasaarayaashii hore ay heli doonaan lacag waxoogaa intaas ka badan oo ay u dheer tahay daaweyn caafimaad oo bilaash oo dibadda loogu qaadayo. qof u dooda xuquuqda aadanaha ayaa heshiiskaasi ugu yeeray inuu yahay isku day lagu doonayo in lagu sii wado xatooyada lagu hayay hantida dadweynaha. arrintan kuba koobna oo kaliya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ee dalka Nigeria ayaa waxa ay aad ula fajaceen markii ay ogaadeen in senatarada ay bishii qaataan in ka badan $30,000 oo kharashaada. sidoo kalena xildhibaanada waddanka Kenya ee la siiyo mushaharka aadka u badan ayaa waxaa lagu yaqaanaa in markii la doortoba ay jaan goostaan iyagoo kharashka ay qaadanayaan.